hal qodob baa aniga igula laba taabtaaniya laakiin ilaa 6 qodob baa lagu sheegaa qodobka koowaad qodobka labaad qodobka saddexaad kan shanaad kan sagaalaad iyo kan 13aad baa la yiraahdaa waa mabaadiduna waxa bedeli kara cod shacab oo babliga inta kale baarlamaanka ayaa xaq u leh inuu bedelo shaqadiisa ka qabsado hadba wixii masaalixda ummadda ku jidho ay waafajiyaan waxaan leeyahay dawladdu iyo xukuumadduna waa ku mahadsan tahay soo jeedintii ururada ay qaadatay iyo mataqaanaa doorkooda waxaan kaloo ku mahadinayaa baarlamaanku inay doorkooda qaatay wax laga saari karana ma jiro hay-adaha aan sheegay baa dalka sharci ka ah dhaqankuna waa sharci cid waliba ay u xilsaaran tahay gobol dalkan waxaa u sarreysa dawlad hay-ado kala duwan oo kuwa dhaqan iyo kuwo sharci intaba waa leeyahay kuwa dhaqanku waxay u xilsaaran yihiin beelahooda iyo gobolladooda wixii talagelyo wixii barabalema oo ka dhaca inay dawladda la xaliyaan inay kala tashadaan in mataqaanaa ay la soo sideedana dawladnimada ayaa dhaqanku ku khasban yahay inuu la shaqeeyo iyaguna mudankooda iyo sharaftooda iyo xurmadooda waa leeyihiin qolana waa inaysan qolada kale u gudbin maandhoydka sharciga ah in lagu wada shaqeeyo ayaa dadka reer Puntland laga rabaa isimo ayaa waxay ku baaqeen in la isu yimaado oo arinta baarlamaankana la hakiyo lana isu yimaado waxaan marka ugu horeysa ka cudurdaaranayaa oo runtii anoo xurmo iyo sharaf iyo qadarinba u haya haddana in xaqa la cadeeyo waa shay waajib ah oo qofkii saarana waliba si gooniye ku noqonaysa inuu cadeeyo wixii baarlamaanka ka dhacay looma sinayn jamhad sharci diida nidaam diida ayaa ku soo duushay baarlamaankii maamulka Puntland loomana sinayn habeenkii ka horeeyay kalfadhigu markuu arintan ka hadli doono ayay 5 saac oo habeennimo qabsadeen baarlamaanka hareerihiisii oo dhan istaageen ayna amar waxay ku bixiyeen in aan baarlamaanku imaan karin inaan baarlamaanku codayn karin inaan waxa iyagu yiraahdeen maahana wixii kale ka duwan ay xabad madaxa kala dhacayaan wax maandheyd oo dadkaasi leeyihiin maaha ciidan dawladeed maaha oo hay'ad sharciga oo haysata sharci maandheyd ku haysata maaha iyaga soo duulay dawladda iyo ciidamada dawladda iyo booliska iyo ciidamada amniga kala duwan waxay xaq u leeyihiin inay amniga dalka sugaan inay difaacaan inay muwaadiniinta iyo hay'adaha ay difaacaan mataqaana sharciyadooda iyo shaqadooda xaq bayna ku taagnaayeen laakiin nimanka soo duulay gardarro looma sinna waana hadal aan meesha ku jirin labada qolo gardaran ma naqaan labada qolo xabadda bilowday ma naqaan waxaasi hadal aan meesha ku jirin buu ilayahay mana soconayso in la yiraahdo labada qolo dawladdu sharci bay haysataa sharciyad la soo kala dhaxlay oo ilaa 98 la kala dhaxlayay bay haysataa xagee sharciga marka lala simayo xagee laga raadinayaa oo sharci looga helayaa ciidamada u shaqeynaya nimanka siyaasiyiinta oo diidan nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta waxaan leenahay arintaasi waxa weeye waa arin u baahan in sidaa looga garnaqo qofkii mas'uula qofkii imaama qofkii ismana waxa la rabaa inuu cadaaladda toos u cadeeyo cali garle caydid garle xamar bay ilaa maanta waxay ku haysaa u jeedaan gariga gardarro ma kala naqaan waa ogtiin xumaatadeeda iyo dhibteeda waa la yaqaanaa arintaani 4 bilood ilaa 6 bilood bay socotay waxa la diiday oo la xabadeeyay mataqaanaa in dadku ay u dareeraan inay isdiwaan geliyaan diiwaan gelin xabad 6 February baa la riday ismada maanta hadlaya waa joogeen ma celin gardaradana waa loo jeedo waxaan leenahay ilaa maanta ay socotay 2 bilood baa dawladda ururada waxgaradku waxay sugayeen arinta in xal laga keeno nimanka sharci darrada dadka laga horleexiyo ma waxa siman 4 wiil oo adeegsanaya 46 wiil oo yar oo la qaldayo oo qabiil u isticmaalaya oo reer hebel baan nahay oo masaalixda reer hebel baa ilaalinayna u isticmaalaya mise 70,000 nugaal u diiwaan gashan inay codeeyaan oo xuquuqdooda rabaan ba waxay mudan yihiin in xuquuqdooda loo difaaco
arrintaa waxaan arkaa meelaan rabay roob maygu eriyey daacadnimo la'aan badani inay jidho in mataqaanaa la doonayo dowladnimadii in la afduubkana garab la siiyo marna laga aamuso markay liitaanna garab loo raadiyo wax loo doono markay liitaan in garab la siiyo wax loo doono iyo annagaa dhex gelayna markay liitaan in la difaaco markay kalena aan la taaban magaalada markay soo weerarayaan intaasoo jeer bay xaafada xirteen dowladdu gacmahay laabatay iyadoo xeerinaysa nabadda xasiloonida puntland iyo shacabka iyadoo xeerinaysa dhaqanka oo le war dhaqan oo wax ka qabta intaa makhaati baan ka nahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laba nin oo baa la soo hormariyey meyda markaasaa dadkii waxay yidhahdeen laba hadal oo kala duwan oo midna xumaan tilmaamaya midna wanaag tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wajabat keliyuu ku jawaabay dadkii baa yaabay dee labada eray waa isku mid labada camaloo la sheegayna waa kala duwan yihiin antum shuhadaau llahi cala alardi baa nebigu yahu kamaa qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam dhulka makhaati baa ka tihin makhaatiga waa la furaya waxaan makhaati ilaahay ka nahay dowladda puntland inay ka warwareegtay ka leexleexatay mataqaanaa in dhibaato dhacdo in iska hor yimaado xalla intii la rabo ay ku xeerisay dowladda waa ugu mahad celinaynaa annagu urur mucaaradaan nahay ururo mucaaradaan nahay waxna dowladda waa ku garab siinaa oo sharciyadda iyo nidaamka iyo barnaamijka naga dhexeeya waa saf waaxid baan ka nahay waana xaq wixii ummadda hagardaamadeedana waa kaga soo hor jeednaa oo ma ogolin maalinta aanu nidhaahna xaq bay leeyihiin waa sida ay nala tahay waana matalaad sax ururada 400,000 bay matalaan maanta urur aan matalaad haysani ma jiro 7 urur matalaadda ummadda ay haystaan sida isimadu u haystaan bay u haystaan sida dowladdu u haysatay u haystaan dowladdu kama tanaasuli kadho xuquuqda dadku leeyihiin waa la wadaagnaa waa la leenahay talaan ku leenahay dowladdu intii isxakamayn lahayd bay isxakamaysay wayna ka leexatay mataqaanaa colaad waa ka fogaatay haddana waa ku bogaadinaynaa inay xabad joojin ay qaadato laakiin xabad joojintu waxaa la rabaa in garnaqsi ka dambeeyo in qofka gardarana uu gardarradiisa lagu qiro qofka mataqaanaa saxanna la yidhahda waa saxan tahay ismadu waxay kab u yihiin dowladnimada dowladdu markay saxan tahay waxaa la rabaa inay garab istaagaan markay wax ka gaabiso inay xasuusiyaan iyagana saasoo kale dowladdu waa gacmihii ismadu wax ku qabsanayeen beeshii u hoggaansami weydo oo sharci darro keenta labadii dirira noo soo xira noo qabta arrintaasaa nagu adkaateen nala fududeeya waa laba institution oo iskaashanaya laakiin ma aha institutionka kale xukunka ku haysta mandatekuna waa kala cad yahay dowladnimaduna waa kala caddahay ismada soo wada hadlay oo qaarna qoraalka ku hadlay qaarna codka ku hadlay waxaan leenahay nabaddu waa laba taabtaan waa mandate innaga oo dhan daninoo ah xataa kii soo duulay buu danu yahay waayo naagahoodaa jooga carruurtoodaa qaybtood joogtaa xalay wixii qaxay carruurtoodu kama maqnayn iyo naagahoodu sababay u qaxiyeen iyo sharciyaday ku qaxiyeenna iyo habeen hore ma jirto walaal midnimada puntland iyo nabadda puntland waa in la wada ilaashado puntland magaalada caasimadda dowladda mas-uul uga ah puntland qabiil mas-uul uga ah oo gooniya oo labada dhinac isbaaro ka dhigan karaa ma jiro maandhaydna uma leh xaqna uma leh dadka puntlandna waa siman yihiin xuquuqda waa loo siman yahay noolaashaha shalay ganacsigii baa la baniday iyo xalay iyo habeen hore iyo maanta ganacsigii waa banidan yahay guryihii dhibaataa la gaarsiiyey ganacsiyadii dalkii oo dhan baa la baabashay shacabkii waa dhibaato badan baa gaadhay ciidamadii bay gaadhay kuwii soo duulay laftigooday gaadhay arrintaasi arrin saxa ma aha waana arrin gacmo ka baxsan puntland ay ku jiraan inaan ku celceliyo macno badan ma leh sababtu waxa weye shacabka puntland waana shacab cuqaala horena waa looga hadlay waana la ogyahay faragelin bannaanka ah marka jamhadaha iyo nimanka siyaasadda rabasay rabaan inay u dhigaan haba la soo isticmaalo ama kaalmo dabadeedoo cadow iyo mataqaanaa dad kale ha kaalmaysteene waxaan uga digaynaa simayada shariifyada inaan saamayn bannaanka ah iyo mucaarado hebel baan nabcahay iyo hebel aan ridno dalka inaan loo baabi'in dalkaanaa soo haraya qof kasta oo soo maray madaxweynihii 6aad baan maraynaa qof walba waa tegaya berri kale haddii intii alla ugu talagalay uu dhammaysto mid kaloo haddeer magaciisa aynaan garanayn laakiin in hebel uu yahay innaga qayb ahaan inoo ka qarsoon baa imaan doona nin kasta ha waxeeyo yaan wakhtiga lagu dhereerin qof gooniya yaan dalka qof gooniya lagu xumayn
annagu haddaanu nahay ururada siyaasadda waxaanu u taagannahay gaar ahaan intii ila ra'yiya waxaan u taagannahay nabadda iyo horumarka Puntland waxaan u taagannahay xorriyatul qowlka waxaan u taagannahay matalaadda shacabka ayaanu haysanaa sida dawladdu u haysataa waan haysanaa sida mataqaan dhaqanku u haystaanu u haysanaa matalaad baan leenahay taladana waxbaan ku leenahay miiska dhaqankaanu fariisanaynaa waxa loo garnaqayaa ma aha dawladda iyo nimanka jabhadda waa annaga ururada siyaasadda ah iyo nimanka noo diidan shacabka iyaga inaan la hadallo shacabka iyaga inaan matalo oo ka dhigaya matalaadu inay tahay qori matalaada Puntland qori ma aha waqtigeediina waa la soo dhaaf waxaan isimada mar ka koowaad labaad saddexaad ilaa marka tobnaad kula talinaya qaata waajibaadkeedu ku aadan waajibaadka dawladdu leedahayna ku garabsiiya dawladdu iyada barnaamijkan hoggaanka ah ilaa iyo haddana waa wadaa shacabkuna waa hoggaansamay shacabka xuquuqdooda la hor taagan yahay oo 70,000 oo reer nugaaleedna waa in laga hor leexdo inay shaqadooda qabsadaan shaqa aan la gaarin maalin heblo waxa la yeeli doono ururada siyaasadda u taal waxgaradkay u taal sharcigay u taal walwalka noocaasana annagu haddaan ururada siyaasadda ma qabno inta isku ra'yiga oo samajalaha oo nidaamka u hoggaansan annagu waxaan rabnaa inaan nidaam ummaddu leedahay aanu codka ku kala helo kan madaxweynaha haddii alla idmo oo qodobka la bedelo babligu uu noqdo lagu kala helo islaanta guriga joogta iyo odayga iyo dhalinyaradu ay u codeeyaan madaxweynahooda u codeeyaan baarlamankooda u codeeyaan konsolladoodiina inta ka hadhay mooye intii kale waa u codeeyeen walaalayaal waxaan leenahay sharcigu waa inuu ina kala hago qabiiladu inama kala hagaan inama kala halagi karaan intii ay ku ekaad limidkoodana waa la gaaray dimuqraadiyadda iyo nidaamka moodareedka oo caqliga ah loo hoggaansamo hal iska daayo nidaam beeleedka beenta ah hal iska daayo taraha aan waxba ka jirin ninkii tara rabaa ummadda reer Puntland baa joogtee cid ha weydiiso xaq buu leeyahay ninkii mudanna dadku waa dooranayaan nimay ninka jecel yihiin ma jiro annaga dani la tartanna meelna waa laga helaa naga helaa meelna waa ka helaa ururada kalena waa nala mid nimayow nin dadka shaabad wejiga kaga dhegan ma jidhee waxaan qabaa in sharciga loo hoggaansamo waxaan la talinayaa arrintii bari ka dhacday xumaan loogaba cabir qaato bari waxaa ka dhacday dhibtii ka dhacday waa saxantahay iyo waa qaldantahay danka malihi kuwa nugaal jooga oo jamhadda oo weliba siyaasiyiinta dawladdan ka soo shaqeeyey iyo ay ugu horeeyaan waxaan leeyahay shalayna barnaamijkan waa ku jidha waa socodsiinaysaan maantana dadka caamada inaad ugu sheekaysaan reer hebelba konton buu laayey lalamana xisaabtamin ma sharci darro ku raadinaysaa haddaba sharci darro u aqoonsan tahay isumadii arrintaa dhex galay oo gobolka bari reer bari kaliya ahaayeen gobolka bari bay ka soo jeedeen waa ku mahadsan yihiin waxay doonaanba inay nabad ku dhaliyeen inay hagaagtay ilaahayna waa uga mahad celinayna kuwa nugaaleed waxaan leenahay haddaydnaan ku fillayna u yeerta laakiin yaa nidaamka diidan iyo yaa saluugsan in la isla raadiyo dalkan waa sharciyad yaan qori loo wada rogi sharciyadda ha lagu wada shaqeeyo iyaguna sharciyadday wax ku yihiin ninka isimka walaalkiisaa joogo aniga iila siman ninuu yahayba xurmada aan isaga siino ma siino sharcigaaga xurmada uu ku siiyey hayso annagana xurmada iyada iyo magaca iyaga aan noo haysada hana naga xumayn hana nagaga eexan annagaa ka shacbiyad badan nimanka ama loo aamusayo ama loo garab dhiibinayo annaga ayaa ka sharciyad badan waxaan leenahay ismada isku wada cod ma ahayn wixii nabad ka shaqaynaya wanaag ka shaqaynaya dawladnimada iyo nidaamka in loo hoggaansamo inta yar ee qaldan in la wada qabto ka shaqaynaysana waa soo dhowaynaynaa intii ula jeedo kale oo barxan ama ula jeedo kale oo Puntland ka baxsan mataqaanaa rabtana waxaan leenahay waxaa idinka sharaf badan dadkiina iyo mandatekiina dhaqan inaad u tudhaan inaad waxaysaan waa digniin bay iga tahay inay sharaf wada leeyihiin xurmadaan u haynay Puntland Soomaaliya oo dhan baan kaga faani jiray dhaqan baan leenahay wanaagga iyo xumaanta kala yaqaan la xurmeeyo shacabkuna xurmeeyo dawladduna xurmayso dadkoo dhan xurmeeyaan ilaa haddeer waxaan u jeednaa
arrin wixii baaqo wanaaga tacsiya waxa weeye waa idinla qabnaa waana idinla qaadanaynaa wixii idinka tambadiyey oo ama aqoon ama mataqaanaa baawar ciidan idinka tambadiya waa laydinla qaadaya ninna ha u hoggaansamina ilaahay u hoggaansama ummaddiina dooratayna wanaag ku hoggaamiya wanaag cadaalad sameeya gaar ahaan ismadayada nugaaleed waxaan leenahay 70,000 oo kaararkooda ciridda la taagan inay codka dhiibtaan rabaa xaq bay u baahan yihiin cadaalad bay u baahan yihiin 5 wiil in la daba galo oo hadba loo raadiyo oo mataqaanaa cudurdaarka loo badiyo iyagana aan wax laga keeni karin kaaga daranta 10 jeer baa mandate loo siiyo leeyahay nimanka xalka keena waxa doontaan ka keena ilaa maanta lama hayo iyaga hadday kabdacaysi ka goodo kabdacaysa ka gooday hal keena leey ma waxa cadaalad ilaahay ma waxa xaq soora waxaan qabaa wax laga midaysan yahay oo aan la bareerin inay jiro jamhadda soo duushay iyo dawladdu masina jamhadda iyo baarlamaanku masina jamhadda iyo masina ururada siyaasaddu waa in instituushino dawliya sharciya qaanuuniya xaq bayna u leeyihiin inay qabtaan adeerayaal marka waxaan leenahay oo shacabka nugaaleed u sheegaya annaga matala xuquuqdiina waa u doodaynaa 70 ciridda taagan xuquuqdooda raba waa u doodaynaa waa doonaynaa waa difaacaynaa ismada iyo waxgaradku horay u sheegeen ismadana waxaan leenahay nagu raaco dadka xaqooda ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiro dadka ugu horeeyo naarta la gelinaya waxa kamid ah imaam aan caadil ahayn baa wuxuu ka mid yahay dadka ugu horeeyo naarta lagu tuuraya ama kuwa beenta sheega waxaysan qabin wax ka duwan ku shaqeeya nin jeclaysiga iyo nin nabcaysiga ina ka saara Puntland baa laga fakaraya 4 milyan iyo mataqaanaa dhulkeeda baa laga fakaraya horumarkiisa iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonida nin jecel iyo nin ku khasbani ma jiro sharciga iyo nidaamkeenu ku wada khasbanahay una wada hoggaansamayna kulligeen odayaal waxaan leeyahay shacabka Puntland istajiya sharci bay ku dhamaan doontaa ciidii dambi leh haddeer waxaan ku baaqaya dadka la laayay hudur ma nimanka garawa joogana siciidani wuxuu nala hadli doonaa markaan 50 qof dilo oo kun guri dumino buu nala fariisan doonaa horay u dhacday inay ku doodaan oo dadka wax magaratada ka gadaan sax ma siciid waa reer hebel inay dad ka gadaan marka la shaqeynaysan reer hebel buu ahaa haddana waa isla reerkii ma bedelan dadka iyaga lama qaldi karo oo sheegaynaa markay la shaqeynayeen wasiirada u ahaayeen la taliyaasha u ahaayeen u kaambeyn gareynayaan reerka hadda uu yahay buu ahaa reer kale ma ahayn in 3 urur ay dalka ka shaqeyso iyo inay 10 urur ka shaqeyso waxa ugu jiray ugu duulayaan lama furi kara u leeyihiin la qodobkaas la furayaa maxay tahay ma saddexdaan aqoonsanahay oo saddexda ayaa idinku raacaya saddexda aad idinku hadda dagaalka ugu jidaan oo leedihiin lama furi karo hadhow ma xarataan aad tiraadaan waa reer hebelo sax maaha aan reer hebelo ka hor nimaano Puntland ayaan ka hor nimaano war waxa sharci noqon mayse sharciga laba walaalaha baa anagu ingiriiska kala dooran jir laba walaalaha Ed Miliband iyo David Miliband labadii Miliband baa kala dooranay hooyadood iyo aabahood baa labada garab ka fadhiyay waxba kuma shaqeeyaan sharciga iyo nidaamka iyo matalaadda dadku inay waasac noqoto ha loo hoggaansamo waxa ka shaqeynaysaana faraha kala bax dawladnimo ma arinta kale oo dhaqanku ballan qaaday oo in la isaga yimaado ballan qaaday arrimaha dastuurka iyo mataqaanaa baarlamaanka mar labaad baan ugu sharciyeynaya hero baatiin sharci baa waxayseen dagaalka idinka ridayda la idin simayo ma aydna ridina shaqadiinii baa qabsateen waana idinka mahad celinayna shaqadiinii baa qabsateen marka walaalayaal insha Allah waa soo koobaya hadal nin badiyayna ma wada oran nin yareeyayna mataqaanaa kama wada tagin insha Allah taala dadyowga naga baxsan oo Puntland ka baxsan waxaanu jecelahay in wada sax ah iyo wanaag iyo sama loo soo maro mashxarada qaldan iyo taakulaynta qaldan iyo faragelinta qaldanna nala ka daayo Puntland waa hay'adii ama waa dawladdii xukuumaddii ugu horeysay oo dalka Soomaaliya oo dib u sabata bixisay dib u soo celisay marar badan ay saluug keentana waa saluug aysan xaq u lahayn oo laga galay
ma wada saxna waa dhici kartaa mararka qaarkood laakiin haddeer ilaa hadda waxa la isku hayo inta badan 80% Puntland xaq bay u leedahay